xilli habeen saqdhaxa ah 3 nin oo ugaarsata ah waa kuwo ku soo dhowaanaya hadafkooda laakiin waa kuwo aanan warba u haynin in tobannaan indha ah ay daawanayaan mugdiga dhexdiisa xilli uusan jirin iftiinka dayaxa waana kuwo ka cagajiidaya isticmaalka tooshka iyagoo ka cabsanaya ilaalada xayawaanada duurjoogta ah ugaarsatadu waa sida shimbir dhulka fadhida oo aanan warba u haynin khatarta ku xidhan marka loo eego awoodda libaaxa ku gabanaya dhirta dhexdeeda habeenkii kani waa weerarka argagaxa leh ee libaaxu ku qaday David Blowy bishii February 2018 xilli habeen mugdi ah 3 ugaarsato ah ayaa waxay ka soo gudbeen xuduudda Koonfur Afrika iyagoo ka yimid Mozambique waxay u socdeen mid ka mid ah xeryaha gaarka ah ee xayawaanada oo ku yaala agagaarka xerada weyn ee Kruger National Park waa xilli gudcur mugdi ah waxayna ahaayeen kuwo ku kufiyey geedaha iyo dhirta markii ay soconayeen keynta dhexdeeda ma aysan isticmaalin haba yaraatee wax iftiin ah waa kuwo ku socdaalay dhulkan hadda ka hor si fiican ayayna u garanayeen waxay ka soo kictimeen tuulo fog oo lagu magacaabo Mafuza kuna taala deegaanka Mazingiri halkani waxaa ku nool dad badan oo sabool ah 3 meelood meel dadkani waa kuwo aanan waxna akhriyin waxna qorin laakiin inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay beerashada sida galleyda lowska maxoga iyo bataatiga keliya 4% guryaha ayaa heli kara koronto deegaankan David Blowy oo 50 jir ah kuma uusan cusbayn tijaabadan isaga iyo 2 kale oo kuwa si dhuumashaa ku soo galay waddanka Koonfur Afrika 9kii bishii February waxay si qarsoodi ah ku soo galeen xerada Upapad Game Reserve oo koonfur kaga beegan webiga Oliphants River oo mara xerada weyn ee Kruger National Park ugana sii gudba waddanka Mozambique raggani waa kuwo wax yar unsitay waxay wateen mindiyo iyo 2 qori oo nooca ugaarsiga ah ganacsiga sharci darrada ah ee xubnaha libaaxa wiisha iyo faanta maroodiga waa mid aad u qaali ah wadamada bariga fog sida China iyo Japan waxaana laga heli karaa $10,000 waa kuwo noloshooda ku tiirsan tahay ganacsigan si ay u qoodiyaan qoysaskooda gaajoonaya faanta wiisha waxay ka qiimo badan tahay dahabka markii lagu iibiyo suuqa madow ugaarsatadan waa kuwo noloshooda khatar gelinaya xilli ay ugaarsanayaan waayo ciidamada ilaalada xayawaanada duurjoogta ah waa kuwo si joogto ah u gaaf wareegaya kaymaha waxayna fasax u haystaan inay toogtaan ugaarsatada sharci darrada ah khatarta kale waxay ka imaan kartaa xayawaanada la ugaarsanaya naftooda sida caadiga ah raggana waxay ku ugaarsadaan iftiinka dayaxa waxayna ka caawinaysaa inay si fiican wax u arkaan habeenkii taasi macnaheedu waa inaysan u baahanin inay isticmaalaan toosh si aysan u arkin ama u dareemin askarta ilaalada xayawaanada duurjoogta ah markii ay ugaarsanayaan waxay isu raacaan 3 mid wuxuu tooganayaa xayawaanka midna wuxuu jarayaa xubinta xayawaanka ee ay doonayaan midka saddexaadna ilaalo ayuu noqonayaa lama garanaya xayawaanka David iyo saaxiibadiis ay doonayeen inay ugaarsadaan habeenkaasi laakiin markii ay u gudbeen kaynta gaarka ah ee xayawaanada duurjoogta ah habeenkaasi 2 keliya ayaa nolol looga soo badbaadaya si qarsoodi ah waa kuwo u gaatamaya kaynta dhexdeeda gacmahooda waxaa xangaruufanayay qodaxda dhaadheer ee geedka quraxa ah wadnahoodu waa mid si degdeg ah u garaacmaya markii la gaaray xilliga ugaarsiga habeenkii iyagoo tooshaskooda si xadidan u isticmaalaya ilbiriqsiyo gudahood waxay heleen raad laga yaabo tani inay tahay cagtii libaaxa waa kuwo iyagoo forarsan marna soconaya marna istaagaya si tartiib ah iskugu dayayana inay mugdiga dhexdiisa wax arkaan midba midka kale ayuu si hoose ula hadlayay iyagoo dhagaysanaya shanqarta cidlada kaymaha Afrika laakiin keligood oo keliya ma ah waxa ugaarsanaya mugdiga dhexdiisa 3 nin ee reer Mozambique laga yaabo inay ku hubaysnaayeen hub khatar ah laakiin halkaa waxaa jiro dilaaga kama dambaysta ah oo khabiir ku ah sida loo ugaarsado kumanaan sano libaaxa Afrika waa mid mas'uul ka ah dhimashada 200 oo qof sanadkiiba wuxuuna dhirirkiisu gaarayaa 10 feet ama 3 mitir markii lagu daro sayntiisa culayskiisu waa 500 oo pound ama 225 kilogram libaaxyada qaarkood miciyahoodu waxay gaari karaan 4 inch ama 10 sentimitir waa kuwo wax kastoo nool ugaarsada waxayna cunaan noocyada kala duwan ee ugaarta sida dameer farowga giriga iyo loogisida inkastoo libaaxyadu ay ugaarsan karaan maalintii haddana waxay jecel yihiin inay ugaarsadaan habeenkii aragtidoodu waxay ka fiican tahay habeenkii 6 ilaa 8 jeer aragtida bani aadamka mugdiga dhexdiisa libaaxyadu shaki la'aan waa kuwo gacanta sare leh
sida nimanka ugaarsatada ah horey ugu soo dhaqaaqeen si la mid ah ayay libaaxyaduna sameeyeen. David ma uusan dareemi karin libaaxyada ku soo dhowaanaya, laakiin waxay u muuqataa in saddexdooduba ay toos uga soo socdeen xagga libaaxyada soo socda. isaga oo aan haysanin waqti uu ku falceliyo, David oohin ayuu afka furtay markii libaaxu dhulka ku dhuftay lugihiisa. intaa kadib, David waa mid isku dayaya inuu gacanta la helo keebka qorigiisa, halka libaaxu afka la helay David madaxiisa. dhawaqa rasaastu waa mid laba codlaynaysa bartamaha keynta xilli saqdhaxa ah. tanina waxay signal u diraysaa askarta ilaalada xayawaanada duurjoogta ah. David waa mid dareemi karay micyaha libaaxa ku quusaya madaxiisa, wuxuuna isku dayay inuu libaaxa ka sii daayo madaxiisa. waa mid lugaha dhulka ku garaacaya halka libaaxu dhulka ku jiidayay. intaa markii ay dhacday, David saaxiibadiis waa kuwo tuuraya qoryaha cagahoodana wax ka dayaya. David waxay u jireen iyaga 1 mitir oo keliya markii libaaxu qabsanayay. waxay arkayeen libaaxyo waaweyn oo David dushiisa ku boodaya, waxayna maqlayeen cabaadka David iyo libaaxyada hilibkiisa isku dagaalaya. argagax ba'an ayaa ku dhacay markii ay cararayeen, iyagoo dib ugu soo cararay seeraha kala qaybiya xayawaanada duurjoogta ah iyo dadka. waa kuwo ku kufayay laamaha geedaha dumay markii ay ka cararayeen libaaxa. waxay ku sigteen in wadnuhu bannaanka imaado. iyagoo xiiqsan oo neeftuuraya, waxay si dirqi ah ku soo gaareen derbiga siliga ah ee ku wanaagsan xayawaanada duurjoogta ah. markii ay dhanka kale ee siliga soo gaareen, ayay istaageen si ay u neefsadaan. waxay ahayd meel 50 mayl u jirta tuuladoodii. kadib waxay gaarsiiyeen warka naxdinta leh David qoyskiisa. waxay u sheegeen in David uu libaax cunay. David wuxuu ahaa ugaar uu si fudud ku helay libaaxu, saaxiibadiisna way iskaga carareen, iyadoo uu sinaba u arki karin libaaxyada hortiisa dhabaxan. xilliga mugdiga ah ayuu si toos ah u soo dhex istaagay. ma ahayn mid naftiisa difaaci kara, waayo waxbaba ma uusan arki karin. hal ilbiriqsi gudaheedna mid ka mida libaaxyada ayaa miciyaha la helay dhuuntiisa. ma ahayn in libaaxyadu ay ku qaldeen David ugaar, balse waxay ahaayeen libaaxyo dadcun ah. dhawaqa rasaasta ayaa waxaa maqlay askarta ilaalada u ahayd deegaanka oo meesha soo gaaray, laakiin libaaxyadu mar hore ayay meesha isaga tageen. waxaa un meesha ku haray David madaxiisa. ugu yaraan jirkiisa inta kale waa la cunay. kadibna alam ayaa waxaa yeerinaya askarta deegaanka, waxaana meesha soo gaaraya ciidamada booliska iyo dhakhaatiirta gaarka ah. markii uu habeenku bariyey, wixii ka haray David jirkiisa waxaa loo qaaday isbitaal lagu magacaabo Mafuta Malazi Hospital. maxay kula tahay, David ma mudan yahay in sidaasi libaaxu u cuno, mise way fiican tahay in la ugaarsado xayawaanada duurjoogta ah? habeenada ka mid ah, shanqarta dabeecadu waxay ahayd mid halaag u ah gabadhan 17 jirka ah. markii ay bannaanka u soo baxday mugdiga dhexdiisa si ay u nafisto, waxay joogtay mid ka mid ah tuulooyinka baadiyaha fog ee India oo u dhowaa xeryaha aadka loo ilaaliyo ee libaaxyada Asia. 2 libaax ayaa indhaha ka buuxsaday inantan da'da yar mugdiga dhexdiisa markii ay dariiqa haysay oo musqusha guriga dibaddiisa ku yaala u socotay, laakiin ma aha mid gaari doonta musqusha. kani waa weerarka argagaxa leh ee libaaxu ku soo gabagabeeyey nolosha Bhavna Bariya. xerada Gir National Park ee India waa meesha keliya ee libaaxyada Asia ay ku nool yihiin duurka. taranka libaaxyadan oo dib u soo kabasho ka sameeyey 50 libaax oo keliya waxaa lagu tilmaamay guul weyn, laakiin tiradooda oo sii kordhaysa korna u dhaafaysa 500, waxaa laga maarmaan ah in si dhow loola socdo si noloshooda looga taxadaro, isla markaana ay si nabad leh ugula noolaan lahaayeen dadka deegaanka. laakiin tani waxay u muuqataa mid waqti xaadirkan fashilmaysa, maadaama kontaroolida libaaxyadu ay aad u adag tahay. saraakiisha xayawaanada duurjoogta ah waa kuwo si joogto ah libaaxyada u siiya cunto firi ah si ay ugu soo jiidaan indhaha dalxiisayaasha, taasoo farxad gelinaysa dalxiisayaasha kana dhigaysa inay mar walba dib u soo laabtaan. waxaa jira khubaro ka digtay in libaaxyada la siiyo cunto aysan iyagu ugaarsan, taasoo keeni karta cawaaqib xumo aan la mahdin. muddo kadib waxaa laga yaabaa in libaaxyadu ay lumiyaan awooddooda wax ugaarsi, taasoo ka dhigaysa kuwo ku tiirsan cuntada ay siiyaan saraakiisha xayawaanada duurjoogta ah. ma aha oo keliya in libaaxyadu ay la xiriiriyaan cuntadan la siinayo bini'aadamka,
laakiin waxay ka dhigi kartaa kuwo ugaarsada xoolaha dadku ay dhaqdaan ama dadka naftooda. In wax yar ka badan 10 mayl meel u jirta mid ka mid ah kaymaha aadka loo ilaaliyo oo libaaxyadu ay dhex mushaaxaan waxaa dhaca tuulada Hanfuuli ah. Bahafna Baria oo 17 jir ah iyo in adeerta Treka waxay ka shaqaynayeen meel beer ah. Bahafna waxay la nooleed waalidiinteeda oo deganaa tuulada Mitaan ee bariga mandiqada Gujarat, laakiin waxay soo booqatay qaraabadeeda oo degan tuuladan Hanfuuli ah. waxay aqbashay dalab ah inay ka shaqeyso beerta abtigeed oo ku taala tuulada Hanfuuli ah. waxay ahayd shaqo aad u adag, laakiin waxay dhaqaale u sameynaysay qoyskeeda. maalin shaqo oo dheer kadib, iyada iyo in adeerta Treka waxay u hoydeen habeenkii guri yar oo xaafadda ay leedahay oo ku yaalo meel foora ah. waxay isku duuduubeen bustayaashoodii maadaama ay aad u dallanaayeen ayna dhaxamoonayeen, laakiin inta aysan gam'in wax yar ka hor Bahafna waxay dareentay inay u baahan tahay inay soo xaajooto. waxay ahayd 9 iyo bar fiidnimo. bannaanka waxay ahayd mugdi zaa'id ah. Bahafna waxay weydiisatay in adeerta Treka inay u raacdo musqusha. waxay xoogaa u jirtay qolkii ay jiifeen, kadibna waxay iska fureen albaabkii qolkii yar ah oo ay jiifeen, waxayna u baxeen guriga dibaddiisa oo mugdi ah. guuxa xasharaadka iyo shanqarta cidlada mugdiga dhexdiisa waa mid cabsi badan abuuraysa. waxaa jiray libaaxyo dadcun ah oo soo galay habeenkaasi tuulada. waxay ku taalay daanta webiga oo Zaat, waana meel ay ku badan yihiin libaaxyadu. shubaalinta iyo qulqulka biyaha webiga waa mid laga maqli karo meel aad u fog. waa shanqar ku habboon libaaxyada dadcunka ah ee habeenkii soo gaatamaya. gabdhahan warba uma haynin in indhaha libaaxyada ay hadaf u ahaayeen habeenkaasi. haddii ay toosh haysan lahaayeen waxay ogaan lahaayeen khatarta ay ku sugan yihiin habeenkaasi. taa beddelkeeda waxay iska soo qaadeen dariiqa hareeraha cawska ku leh mugdiga dhexdiisa. waxay socdeen bannaanka dhaxanta badan oo ka fog ammaanka guriga. 2 libaax oo aad u waaweyn ayaa ku soo dhowaanayay gabdhahan. iyagoo isqarinaya ayay marna dhabacanayeen, marna horey ugu soo soconayeen dhanka gabdhaha. waxay u degdegeen dhanka musqusha. inta aysan gaarinba wax yar meel u jirta albaabka musqusha waxay ku baraarugeen 2 libaax oo 2 dibi le'eg oo dhankooda si xoog ah ugu soo ordaya. inkastoo ay mugdi ahayd, waxay arki kareen lugaha hore ee xoogga badan ee libaaxyada soo ordaya. waxay arki kareen shaarubaha iyo shaashka madow ee libaaxyada markii libaaxyadu u soo degdegayeen dhankooda. indhahoodu waxay ahaayeen kuwo si daran u eegaya gabdhaha. meel lagu baxsado ma jirto, gurigana kama gaari karaan inay ku soo laabtaan. hadday isku dayaan inay geed fulaan cabsi darteed ayaysan u fuuli karin. 2 libaax waxay isugu tageen Bahafna Baria halka Reka ay isku dhex tuurtay barkad biyo ah oo musqusha u dhoweyd. nasiib wanaag, biyaha barkadda ku jiray waxay u joogeen Reka garabka, taasoo u suura gelisay inay dhex kada loobsato. laakiin waa mid aanan ku dhiiran karin inay si fudud naqas u qaadato. intay indhaha isku qabsatay ayay dhegaysanaysay iyadoo argagaxsan masiirka in adeerteed oo libaaxyadu lafaheeda riiqayaan. Bahafna nasiibka ayaa ka heliyay. libaaxyadu si kadis ah ayay u soo baxeen. ma aysan haysan waqti ay ku falceliso. inta aysan meesha ka baxsan mid ka mid ah libaaxyada ayaa miciyihiisa la helay dhuunteeda. miciyaha libaax waxay gaarayaan 10 sentimitir. wax iska caabin ma aysan samayn karin. awoodda qaniyada libaaxu waxay jebisay qoorteeda ilbiriqsiyadii ugu horreeyayba. waxay ahayd mid ku qaylinaysa in laga soo gaaray libaaxyada, laakiin cid u soo gurmatay ma jirto. sidaas ayayna ku aamustay. kadibna libaaxyada ayaa u jiitay dhanka kaynta jiqda ah. dhanka kale, Reka waxay ahayd mid aan dareen lahayn argagax dartiis. iyadoo ku jirta barkadda gudaheeda waxay maqlaysay xuraaminta libaaxyada, iyagoo dareemayay inay meesha ku jirto, laakiin aanan doonayn inay biyaha u soo dhex galaan maadaama libaaxyadu ay necab yihiin biyuhu inay jirkooda taabtaan. waxay maqlaysay markii libaaxyadu dhulka ku jiidayeen in adeerteed Bahafna oo ay duurka u qaateen. tani waxay uga dhigan tahay libaaxyadu inay heleen ugaar hilibkeedu ka macaan yahay ugaarta kale. wayna adag tahay in la joojiyo libaaxyada haddii ay bartaan hilibka bini'aadamka.
markii rakax ay xaqiiqsatay in libaaxyadu ay ka tageen meesha oo wax shanqar ah aysan jirin, si taxadar leh ayay uga soo baxday barkadda. wadnaheedu wuxuu ahaa mid aad u garaacmaya, sida camal in dhagaheeda lagu dhex tumayo foosto. waxay dhegaysanaysay isla markaana eegaysay oo sugaysay markii ay libaaxyadu tagaan si ay barkadda uga soo baxdo. kadibna waxay u carartay iyadoo niftuuraysa qolkii yaraa oo ay jiifeen, waxayna bilowday inay si xoog ah u qayliso una dhawaaqdo waalidiinteeda. intaa kadib waxaa la wacay saraakiisha xerada xayawaanada ee Gir National Park, waxaana lagu wargeliyey dhacdada foosha xun. si degdeg ah ayayna u soo gaareen goobta. waxay bilaabeen inay baadigooban Bahavna iyo labadii libaax ee qaatay. waxay raaceen meeshii libaaxyadu ay ku jiideen inanta yar. waxay si argagax u heleen labadii libaax oo cunaya haraaga jirka Bahavna meel dhowr kiiloomitir u jirta tuulada. inanta waxay u jiiteen meydkeeda meel faraq ah oo tuulada ka durugsan. markii saraakiishu ay arkeen libaaxyada, way qayliyeen sacabahooda ayayna tumeen si libaaxyada ay u argagaxiyaan. waxay ahaayeen libaaxyo waaweyn oo si wada jir ah u ugaarsada. saraakiisha iyo libaaxyadu waxay is hortaagnaayeen in ka badan 1 saac iyo bar, waxayna diideen inay meesha ka dhaqaaqaan, waayo libaaxyadu waxay mar kale damacsanaayeen weerar cusub. waxay ahayd dhacdo aad u fool xun oo dareen ku reebi doonta dadkii goobjooga u ahaa. habdhaqanka libaaxyadan wuxuu ahaa mid aan fiicnayn oo caddayn u ah inay ahaayeen libaaxyo hilibka dadka ku manay. saraakiisha kaymaha waxay isku dayayeen had iyo jeer inay gacanta ku dhigaan labadan libaax si ay ugu soo celiyaan goobaha libaaxyada ee la ilaaliyo. maalmo ka hor intii aysan dhicin musiibadan, dadka deegaanka ayaa si khaldan u adeegsaday libaaxyada si ay lacag u sameeyaan. sac ayay ku xireen geed, waxayna iyagoo isqarinaya u sugeen in libaaxyadu soo gaadaan saca. waxay ku sawiranayeen moobayladooda markii libaaxyadu u soo gabanayeen saca. qaarkood ayaa xitaa live stream ka soo galayay Facebooka iyo YouTube-ka si ay lacag u qaataan dadka daawanaya. dadyo kala duwan oo ku kala sugan daafaha caalamka ayaa si live ah u daawanayay markii libaaxyadu ku boodayeen saca geedka loogu xiray. sacu in yarna isma difaaci karin, mana carari karin. waxa uun meesha loogu xiray in la daawado sida libaaxyadu wax u dilaan iyadoo live ah. dhacdadan waxay ahayd mid murugo badan. inay lumiyaan qof aad u daayar waxay xanuun ku ahayd qoyska Bahavna iyo dadka deegaanka. ku noolaanshaha meel u dhow duurjoogta dilaaga ah khatarteeda ayay leedahay. dhulbeereedka iyo tuulooyinka ayaa inta badan xuduud la leh deegaanka dabiiciga ah ee libaaxyada, taasoo u horseedaysa dhimashada dad badan. laakiin maadaama tirada libaaxyada Asia ay sii kordhayaan, laga yaabee in wax badan loo baahan yahay in la sameeyo si loo hubiyo badqabkooda iyo dadka la wadaaga deegaankooda, iyadoo la hubinayo in qof kale oo la mid ah Bahavna Bari ah uusan la kulmin halaagooda ugu dambeeya ee naxdinta leh.